innaka maanta ka warrama ninka markuu mas'uul laga dhigay dawladda ama xildhibaan loo dooranayo muxuu socdaa bay kula tahay muxuu socdaa waa lacag fiican heshid meelahana si fiican ha u jajabsatid lawa xildhibaankii baa la odhanaya oo loo banayn meel walba أبو بكر الصديق رضي الله عنه مال قبين بوها نيكا ومدى وقو خير بدن بوها عبد الرحمن بن عوف مال قبين بوها تومنك جنة اللو بشاريين كمد بوها عثمان بن عفان مال قبين بوها تومنك جنة اللو بشاريين كمد بوها جرير بن عبد الله البجلي أوغاس بوها أجل صحابة النبي محمد رقاقو قيمة بدن بوها صحابة رسولكو تجار بي لهايين عقال بي لهايين شعراء بي لهايين دختر بي لهايين أمراء بي لهايين فقراء بي لهايين معلمين بي لهايين علماء لهايين أوغاسي لهايين لكن مركز لأيقا آخرة دي الدينتا حقا ويكوضا سنين يكو حقا ويكوضا سنين كوغا أميركا إلى كوغا ماموركا سمدات إلهي وقوضا بقيين سمدات آخرة وقوضا فكريين عبسدا إلهي أي كبقيان iyo aakhirada ay ku xisaabtamayaan waxay u dhib yareysay ma taqaanaa in adduunka dusheeda xaq ilaahayna iska ilaaliyaan xuquuqda bini'aadamkana iska ilaaliyaan aakhirana ay tagaan iyagoo aan waxba lagu lahayn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu khilaafada islaamka markii loo dhiibay waa markuu nabigu adduunyada ka intiqaalay sallallahu alayhi wasallam wuxuuha bagaashluha dharka iyo badeecadu suuqa ku iibin jiraa la yiri alaabtiisii buu qaato degtuu saartay Umar baa arkay ninkoo sii socda kale ya Abu Bakr ila ayna wuxuu yiri waa shaqo tagaya oo taladii ummadoo dhan ba adiga madaxa laga saaray madhaleeli oo reerkayga ayaa ii bilin soo anu ka mas'uul maayo ilaahay weydiin maayo muslimiinta oo dhan baa looga dhigay mas'uul madax khaliifata rasuulillah weeyaan مسؤوليته أو قبتينا لعقبات كو قادن ماشي ما سو دغن اسو إنك ما أنت كورم إنك مركو مسؤول لقى دقي دولة أما حلبان لو دورنا محو السعودة بيقولتها محو السعودة هو العق في عن هيشد ما لها نصف عن هوجة جبستد لو حلبان كيبا لورنا والله بنين ميل والبي يكو صدا ما حين مسؤوليته أمي أركين ماشي عيال كوكا يكبي لنا يام مسؤوليته waxay u arkayeen waa xilligii ummadda nabiga loo khidmeynayay waa adeeg ummadeed ummadda u adeegayaan ilaahay ikhlaaska inaka hayna siiyo Abu Bakar uu yaabay war ciyaalkayga reerkaygina ma haleeleysid oo masaariiftoodii ana ka mas'uule ana ka shuureynay adu noqo horta halka fadhiiso ma haleeleysid hadii toole والله سوريي وحلو سوريي ما دام أفر ريرو لها إن بيت المال كان لقصية مصاريف ريركي سكوفلان نف جحي إنه أكل غيبية مالو البريركي سهيل بكاس يراشين كوفلان لابدي سنة وطلاد ومدها يدور كي بلاد تيسي مركيتي مدي قد كان لقول ذا أبي بكر الصديق الله الرالي كان نقضي إن كيسي عبد الرحمن بن أبي بكر oo lacag sida ayaa baytalmaalkii yimiday Abdurrahman bin Auf oo hamaaliyada ninkii hayay ayuu yiri lacagtan baytalmaalka ku celi markaas uu adeer lacagta xageed ku wada jooji wuxuu aaba Allah u naxariistay ayaa igula dardaarmo yiri haday taydii noqoto maanta waxa duuyaa maanta anigu dhul baan ku lahay magaalada Madiina dhulka iibiya lacagta ka soo baxda dhulka labadii sano ee dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytalmaalka lacag inta leeg baan ka qaadano masaariiftii weeyaane igaga celiya buu yiri inta inii soo hadhanayno ku dhaxal u qaybtama buu yiri Abdurrahman bin Auf yaabay war maxaa leedahay aaba ku dardaarmay sidaas in lacagta lagu celiyo halkee baytalmaalka وصدو قاتي ومصاريفتي إنكو أدو قرتين أو رير كستيني لبدي سنادود أيوة بهاي قرنا يي دول كي ولها مركان يبينينا وحاول نقول دار من العقدة إن هالكي اللي جا علي بيت المال كلو عليه عمر بن الخطاب الله كان عمر ويي أبي بكر الصديق وأبو بكر وقبر أبو بكر بدول تجع عمر
wuxuu yidhi madaxda adiga dabadaa imanaysa wallaahi waa daaliso ku gaadhi mayna buu ka yidhi waadna daalisay buu ka yidhi sidaan u leenahay abubakar ugu dayda waadna daalisay buu yidhi labadii saniye dhowrkii bilood uu talada ummadda hayay waa ninka yidhi igaga celiyay baytalmaalka intaas xukaamta zamankeenna ka warrama waxaasi maxaa keenay waa alla ka baq ilaahay bay ka cabsanayeen aakhiraday ku xisaabtamayeen markaasaa koogii madaxa ahaa xaqii ilaahayna waa ilaaliyey xuquuqdii bini aadamkana saasuu iskaga ilaaliyey koogii faqiirka ahaa xaqii ilaahayna isna uu iska ilaaliyey xaqii dadkana uu iska ilaaliyey waa koogii faqiirka ahaa سعيد بن الزيد رضي الله عنه إسلام با كسو أشكتوتي maxay kaga soo ashkatootay dhul aan lahaa ayuu beertiisii ku darsaday tidhi weliba ceelkaana anigaa leh iyadu haddama le ogow isagaa iska leh waa been abuurasho cuthmaan binu cafaan amiirka muuminiinta u yeedhay saciid waa tobankii jannada loo bishaareeyey nin ka mid a saciid ibn zayd abalacwar markaasuu leey waa laga soo dacwooday saciidow وياك سو دعوده سلانتا با كاسو دعوته دوقدا او maxay ka soo dacwootay dhul iyadu ay leedahay baad qaadatay bay iya la leeyahay oo macal ceelka iyada leh markaasuu ya amiir almuuminiin anu waxaan ka maqlay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh dhul uu lahayn taaka dhul uu lahayn ninka dulmi ku qaata buu nabigu yidhi maalinka qiyaamaha waxa lagu cuquubayn doonaa toddobada dhul intoo silsilad loogu xidho ayaa qoorta loo gelinoo la odhan doonaa jiidoo la kac lamana kici karayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka hayo ka maqlay may kula tahay xaq bini aadan inaan dulmi ku qaadan ilaahow hadday igu been abuuranaysa buu yidhi indhaha ka qaad haddilin adoo indhaha ka qaada mooyaane halkaana ay sheegaysa ilaahu ku dil buu yidhi dhulkii uga kacay ha qaadatay buu siiya waa in dhabeeshay dam markaasay odhan jirtay way habaarkii saciid baa igu dhacay way habaarkii saciid bin zayd baa igu dhacay iyadoo indhalo dhulkii ay ku sheegatay isaga wareegayso indhala ayay ceelkii ku dhacday bale ceelkii bay ku dhacday lagamaba soo saarin halkiiba qabrigeyga laga dhigo lagu aasay xaqa bini aadanku ciyaar maaha ma anuu nabi maxamed ka maqlay taaka in la ego dhul xaqa naas ninka gardarro ku qaata toddobada dhul baa qiyaamaha qoorta loo geliyaa oo lagu yidhaahdaa la kacoo jiid lamana kici kara buu nebiguna ma jiidi karaayo ma anuu xadiiska nabi maxamed ka maqlay may kula tahay cuhmaanow inaan dhul bini aadan aan xaqdarro kaga qaadan ilaahu hadday igu been abuuranaysay buu yidhi indhahana ka qaad halkaan ilaahu ku dil buu yidhi waxaasi waa alla ka baq waxa bini aadanka xaqooga kaa joojinaya waa maxay waa alla ka baq markaad ilaahay ku xisaabtamaysa inuu ku arkaayo uu ku maqlaayo aakhira inay jirtana ay ku hor taallo xaq bini aadan inaad u badheedhaa ku dhiiran maysid laakiin goormuu qofka bini aadanku ilaahayna uu dulmi ka galaa bini aadankana uu dulmi ka galaa waa markuu ilaahay iloobo aakhiradana uu khadka ka saaro سادرتي ولا ليال إلهي إنها نصون نقولها توبت كأنه إن يربان الدنيا جوجنا إن ير وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت بري تولى نول بوحة ولا كل مدونة كما ورقبوا ما شق قبرجاك ونقون قبرجاك ونقون كما ورقبنا بركة ولا الوين عن آخرك وحسابتنا آخره ما ديروا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب إلهي بأشيء قيامه ما ديروا حقنا وكادر يحي لكن نظام إلهي مرك الله في ريارنت وزدود حي بعثت أنا والساعة كهاتين لا ولا فرض النبي قسكود الريي فردا يا مردسدا يا فرد حدا أبو النبي قسكو قبتي مرك أبو النبي يري أنا يا ساعة قيامته سدا لا ولا فرض اسكو حقا ما اسكو حقنا أبو رسولك يري
marka ilaahayna hanu soo noqono han ka baqna ilaahay qulu laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah diinteennana ma aragtaan han ka shaqayno oo shaqada diinta culimada iyo macallimiinta oo kaliya ka mas'uul maahinaya jamaacadade qof kasto muslima diintan xilba ka saaran inaad naftaada islaaxisaa waa waajib inaad ummadda islaaxigana dadaalka aad ka qayb qaadataana waa waajib dacwa ila allah fariidatun sharciya wa daruuratun bashariya bay dhahdeen culimmadu dadka oo ilaahay xaggiisa loogu yeedho waa fariida sharciya weeyaan waana daruura bashariya bashariyadoo dhan baa maanta dacwadda u baahan muslimkiibaa u baahan in salaada loogu yeedho oo maskiidka loogu yeedho oo xalaqaadka loogu yeedho oo diinta loogu nasteexeeyo gaalkiina wuxuu u baahan yahay in iimaankii islaamnimada loo bandhiga buu u baahan yahay mas-uuliyadana xilkaana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ummaddiisa saaroo yidhi laa nebiya bacdii walaa ummata bacdakum alaa falyuballiqa shaahid minkum alghaa'ib aniga nebi igama dambeeya buu nebigu yidhi ninkana ummadin igama dambaysee kiina xaadirkee maanta ila joogow kiina maqan gaadhsii faruba muballaqin awcaa min saamicin iyo kuway maqlayeen saxaabadu intay nebiga ka maqleen bay adduunka o dhan gaadhsiiyeen halkii maalintii risaaladda ay gaadhsiiyeen baa la yidhi inay ka soo noqoto mooyaane halkii ay dhigeen bay taagan tahay maanta insha allah innaguna ina diinteenaan ka shaqeyno wada niyooda insha allah habeen dambana waa jimce markaska ka soo qayb gala kulanka diinta waliba xaafadiinnan markaskuu nii dhow yahay oo marka ilaahay dartii u baxa laynaga yidhahdana ha cabsoonina iska bax war ma baxayno nin baa waagii dhawda xanuunka koronaha la bumbuuninayay ayaa la adig korona laga helay 14 cisho qolka ku jir muu fadhiyo mise uga baxay wuu ku jiray mid baa la sheegay islaantiisii ku yidhi hay soo dhowaan ciyaalka hay soo dhowaan aniguna socdo 14 cisho u fadhiistay qol dhexdii si uu hargabka uga baxo qalbigeena inay adduunyadu ka baxdo oo cadamada makhluuqu ka baxdo oo zamanka aan ku tacalluqsanahay aan sii dayno oo xariirka ilaahay aan soo adkaysano 4 bilood inaan masjid dhex fadhino uma baahnin masjidku waa raaxo walibana sooma hadda intaa ere saacadan wada hadlayna imisa dareenkiinu ziyaadaya imisa aniga dareenkaygu isbedelaya ilaa waxaan ka hadlaynaa waa diine marka insha allah bal yaala insha allah waqtiga iigu dhow ee fursadda iigu dhow inaan bal jamaacadada ilaahay dartii u baxaya 4 bilood 2 bilood fasaxyada aan haysto inaan ilaahay dartii u baxo yaa bal niyoonaya insha allah dhahada للوسائل حكم المقاصد بعلمه ليهن مددا لبحايو ووسائل الدعوه وسائل سدا آلات كنيمك نغا دوبيسان انكم ما جعلين بريغي هوري لكن برياهن waxay yiraahdeen waa loo baahan yahay iska hadlawn yaanakuna wixii ilaahay soo dhaxmariya khayr umada waanu sheegaynaa insha Allah dhahada ilaahay inuu naga aqbalana waan rajaynaynaa qabuuliyada muhiima imisa ku dhageysato ku daawatay muhiim aha ilaahay ma ka aqbalay baa muhiim ah kugu soo ceshay ilaahay naga aqbalo insha Allah habeen dambana fikradiinka waan ka soo wada qayb galaynaa dad badan oo walaalaheena oo xanuunsan ayaa jiro duca doona soo ducayn meyn insha Allah faatixada horta umara faatixa qof walba insha Allah halku ka kurbeysan yahay inuu ilaahay kurbada ka qaado halku ka cabanayo xanuunka hayana ilaahay inuu dabeelaha ka raaciyo laana quraanku waa dawo ducada muuminiintu isku ducaynayaan insha Allah waa maqbuula ilaahay ba naga aqbaliye horta bal suuratul faatixa oo akhriya